كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركي كوبي اللحدانات قيبتي اللباد لسيد أوبتك برنامج كيني بربارين تا أوبتك وحايدنا كسو قدو جرني مدوين كودن بيي وحايدنا سور لسيني أوبتك أخلاق دودا وحايدنا كمالينا مركا قيبتي أفراد بينو مانتا قادن دونا إيا قيبت الشناد إن شاء الله تعالى. قيبت الشناد أوبتك إنو كردسينا وحاويي الأدب الإخوة معناها ولا لها قريقة شوقة لحدودة إن يقوى محي معناها حق الاحترام كأي آدابت قابك إنو قردسينو مركا تالفتي وحيدنا اللمد ويدنا أردو dadka kale iyaguna waa maxay ama guriga jooga ama ka baxsan kuwa yaryar leh dadka waaweyn leh qaabka looga baahan yahay ubadkeenu inay mataqaana u dhaxgalaan ama ula dhaqmaan dhinaca akhlaaqda markay noqoto. Koow horta waxa looga baahan yahay labaynu u kala qaybinayna ubadka qolyana waa ubadka waaweyn oo kale kuwana waa kuwa yaryar marka waxa la yiraahdaa markasta ubadka ilmaha weyn isaga waxa looga baahan yahay inuu ka yar u sameeyo macnaha dhibirsanaan iyo naxariis iyo dulqaad. waxa la yiraahdaa ka yarna waxa looga baahan yahay waalidku inay ku beeraan walaalkiisa ka weyn inuu markaa ixtiraamo oo qadariyo oo tixgeliyo marka oo maqlo. haddii waxa la yiraahdaa labadaas kaana inta laga helo kana intan laga helo nolosha waxa la yiraahdaa qoyska si wanaagsan marka ayay u soconaysaa. waliba waxa la yiraahdaa isagoo qof kasta waa maxay ilaalinaya isaga xaq lagu leeyahay isagoo aan ogeyn isaga xaq uu kale ku leeyahayba. waxyaabaha kale ee kamid oo maaragtay ubadka waxa kamid ubadka waaweyn inay marka kuwa ka yaryar ay ka ilaaliyaan oo ay ka fogeeyaan waxyaabaha ilmaha yar dhibaatada ku keenaya ama argagaxa ku keenaya ama uu ka baqayo ama uu ka cabsanayo inay ka ilaaliyaan. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa macnaha qofka walaalkiisa waa maxay ku ishaara ama ku taaga bir oo kale ama wax dhibaato qofka ku taaga waa maxay walaalkiisa macnaha waa maxay qofkaasi malaa'igta ayaa maxay marka nacdal waa maxay ku soo ridaysa ilaa inta waa maxay ilmahaas waxa uu joojinayo marka walow xataa in kaan haday yihiin waa maxay laba ilmoodo isku aabbo iyo isku hooyo ahba marka waa maxay iyaga saas looga baahan yahay. ta kale waxa weeye ubadka marka la eego dadka waaweyn ee guriga jooga ama walaalahooda ama kuwa ka baxsanba waa inay waa maxay ka weyni oo kuwa yarar waa maxay markastaba dhibis inta u muujiyo naxariista dulqaadka deganaanta caawinta kuwa ka yarna waa inay u muujiyaan qof kasto ka weyn inay markaa maqlaan oo adeecaan wuxuu sheego ay sameeyaan oo wanaagsan ayna qadariyaan markaa. qodobkeena shanaad ee kamid siyaabaha ubadka aynu akhlaaqda u dhisano waxa kamid aadaabul jaar. islaamku waxyaabuhu maaragtay aadka shariicada islaamku ay xuquuqda u siiso ama u ilaaliso waxa kamid jaarka marka dadka waa maxay deriska kula inaad marka xuquuqooda marka iska ilaalisid. haddaba dhinaca ubadka markaynu ka hadlayno iyagana waxa looga baahan yahay 5 arrimood oo kaliya marka ka ilaaliyaan. shantan ka soo qaadayna waxa weeye koow horta wax kasto dhibaato u keenaya oo ama maaragtay qoyska deriska dadka jaarka la in ubadka waa maxay lagu tababaro inay marka waa maxay ka ilaaliyaan dhibaatooyinka wax dhibaatada waxaynu u naqaanaa oo kaliya macnaha in waa maxay reerkii ku xiga ama shiido oo kale ama dhagaxaan ku tuuro ama cay u la tago oo kale ama ubadka islaayaan oo kale. laakiin waxa la yiraahdaa dhibaatooyinka waxa kamid waa iyada kuwa ugu muhiimsan ugu soo horeeyaba ilmihii intu waa maxay cunto soo qaato ama cabitaan soo qaato ama wuxuu cunayo soo qaato reerkii kale waa maxay agtooda la marmaro
ama guriga hortiisa waa maxay reer ku xigo la ag joogo halka la ciyaaro halka la yimaado ama intuu maryo cusub markaa loo soo iibiyo reer ku xiga la yimaado waayo waxa laga yaabaa deriskan kugu xiga inaanay intaaba haysaninba inaanay waa maxay ubadkooda maryo cusub u iibin karin baa dhici karta waxa dhici karta waa maxay inaanay cunto fiican adigu aad haysato ubadkaaga u soo iibin iyo inaanay heli karin baa dhici karta marka waxa la dhibaatada ugu weyn waa maxay ubadka kale ay gaarsiin karaan waxa kamid ah waxyaabaha markaa cusub ay hayaan inay markasta waa maxay ay la tagaan ama ay waa maxay saawlo hormaraan maanta oo dhan taasaa kamid ah marka taa waad ka ilaalinaysaa ubadka ta kale waxa weeye baa la yiraahdaa waxay cunayaan oo kale ama waxay cabayaan inaanay dariiqa iyada wadada waa maxay aan ku isticmaalin ta ku sii xigta waxa weeye iyaduna shanaad muhiimka ah haddii ubadku de waa maxay ay deris ku leeyihiin waa maxay dad markaa muslim ahayn oo kale haddii deriskaaga yihiin iyagana markaa culays baa ku saaran aad u weyn oo markaa waxaad tahay dee safiir baa tahay ama waxaad markaa diinta islaamka ayaad markaa matalaysaa marka adiga dhaqankaaga iyo ubadkaaga dhaqankooda labaduba waa inuu dadka deriska ah uu islaamka u soo jeedi karo hadday noqoto xagga la tacaamulka oo waa maxay ubadkaaga waa inay de ka amaan helaan waa inay wax dhibaato u gaarsiiso waa inay u gaarsiin waa inay markay macnaha akhlaaqdiina wanaagsan dhaqankiina wanaagsan aadaabtiina saa u degan tihiin waa inay islaamku saas u wanaagsan yahayba laakiin iyagoo halka gaalo kula degan haddayba kaaba ubadkaaga ma taqaana ay kaba seexan kari waayaan oo ka jiibsan kari waayaan kaba joogi kari waayaan waxay inuu islaamku saas u dhib badan yahay marka iyadaasna waa arrin muhiim oo sii saaran hooyooyinka marka haddii qurbaha jooga marka qodobkeena lixaad waxa weeye isaguna muhiimka ah aadaabul isti'daan baynu kusoo koobaynaa iyaduna waa maxay waxay ka mid tahay waxyaabaha markaa iyaduna xurmada ama guriga la joogo aadka isaguna muhiimka u baahan isagana in la barto oo la ilaaliyo wuxuuna markaa aadaabta inaad qofka ogolaanshiyo weydiisatid marka guriga la soo gelayo ama qof loo gelayo waxay ka mid tahay waxyaabaha muujinaya qofka xishoodkiisa iyo akhlaaq wanaagiisa iyo dhaqan wanaagiisa markaa isagana waxaynu insha allahu tacaala ka bilaabaynaa qaybta ugu horeysa waa maxay intaanu qofku gurigaaga soo gelin ama markuu guriga soo galo ee uu rabo inuu qol kale u gudbo waxyaabaha looga baahan yahay horta kow waalidka waxaa laga rabaa inay ubadka ku tababaraan oo ay ku celceliyaan marka weliba ay qaan gaadhaan inay waa maxay de idanka ama ogolaansho ah ay waalidka laftigooda ay waa maxay weydiistaan weliba waxa la yahay sida markaa de aayadda quraanka suuratu nuur ku jirta 3 xilli marka 3 xilli waa maxay waana ilaaliyaan waxa la yahay xilliga marka fajrka salaada fajr xilliga ka horeysa ubadka waana horta waalidka intaan cid kale la gaarin waana waalidkayga horta u soo gelin waxa la yahay xilliga waa maxay ilaahay muxuu xilliga dhahirada marka xilliga maxay duhurka amarka inaan u soo gelin iyaga idanka weydiista mooyee kasdaxaadna waxa la baad al-cishaayiga marka cishaayiga kadib saddexa horta waa maxay ubadka way ilaalinayaan marka ku tababaraysa marka ka ku xiga waxa weeye markay soo galaan ama gurigii ay waa maxay guriga kugu soo galaan ama qolkii kugu soo galaan horta waa inay waa maxay ku salaamaan marka oo salaantii bayadana wax looga baahan yahay ka saddexaad waxa weeye markay guriga soo gelayaan ama albaabkii ay soo garaacayaan oo kale ama ay taagan yihiin waxa loo baahan yahay inuu qofku de magaciisa uu sheego waa maxay de Jaabir waa Nabi sallallahu alayhi wasallam waxa uu warinayay xadiiska marka Jaabir waxa uu leeyahay nabiga ayaa marka u yimi marka kadibna ma albaabkii markan ku soo garaacay waxa yiri waa qof ma marka manza wa kuma kaasi marka waxaan yiri ana wa aniga kadib marka waxa yiri nabigu waa maxay waxa yiri marka nabigu waxa yiri ana kaanahu kariha marka mana wuxuu ku celiyay aniga isaga muddo marka maxay dhibsanayo karahsanayo marka deeynagoo xageena waa iska caadi qofku tabaaka iska soo garaaco iska wanaa waa kuma waa aniga buu oranaya adigoo ayaa marka waa maxay waa in qofka magacaaga qofku inuu sheego way ira waa hebel way ama waa hebel oo kaliya marka kaasoo iyadana loo baahan yahay waa maxay waa ka saddexaad ka afraad waxa weeye albaabki markuu qofku taagan yahay cadam istiqbaal albaab qaabkeebu u qaabilaya ma dhinaca midigtu ka istaagaya ma dhinaca bidixdu ka istaagaya ma albaabka dhexdiisu istaagaya marka albaabka la furo soo guriga dhan u wada arko isaga ayaabtu waa maxay qofku inuu albaabka maxay ma dhinaca midigta ka istaago ama dhinaca bidixdu ka istaagaya marka ka shanaad waxa weeye albaabka waa maxay albaabka dhexdiisa isku beegi maayo
macnaha waxa la diidayaa albaabka dhex isku bee marka la furo guriga dhan markaa inuu wada arko. sababta istiidaanka iyo ogolaanshaha loo jeedaya waxay tahayba dadka markaa waa maxay dee guriga ku jiraan cawradooda marka aanad arkin marka waa maxay dee aragaagu marka waa maxay aanu qaban marka albaabka dhinaca bidixda ka istaag ama midigta ka istaagaysaa marka. qodobka shanaad waxa weeye albaabka guriga intee baa la garaacaya marka intee jeer baad garaacaysaa ama salahan ama jeliska ku xiran guriga oo kale isagana waxaad garaacaysaa marka waa maxay ubadka lagu tababaraya 3 jeer marka 3 jeer marka waa maxay la garaacaya oo wax la yiraahdo marka koowaad markaad ku dhufatid ama jeliska albaabka saa u garaacdid de dadkii way maqlayaan. marka labaadna waxa la yiraahdo waa maxay waxay u holanayaan ama marka ay u istaagayaan albaabka inay ka furaan. marka saddexaad waxa la yiraahdaa idankii baa la bixinayaa marka inaad wax laga furo ama yaan laga furin saddexdaa weeye marka. ka ku xiga saasoo marka nabiga calayhi salaatu quraanku saasoo marka sheegaya oo nabiga tuu lahaa macnaha hadii midkiin marka albaabkiisa ku soo garaaco 3 jeer marka ama idan soo weydiisto oo marka aan loo idin aan loo ogolaanin 3 jeer ha iska laabto marka iyana tuu lahaa marka hadaan la idin ogolaan wax de farjico iska laabto marka. ka kale waxa loo baahan yahay qodobka afraad albaabka markuu garaacayo de inuu u garaaco marka maxay si marka degan oo maxay aayar marka uu garaaco oo si hadii albaabka haduu xoog u garaaco de waxba la maxay dadka guriga argagax baa ku dhacaya marka oo kaana wax la mooday marka maxay meesheen ciidan soo galay marka ama booliis soo galeen oo kale guriga marka iyadan aayar buu garaacaya. ta kale muhiimka iyadana waxa weeye haday niri qofku albaabka wuxuu garaacaya marka 3 jeer wax la yiraahdaa waa in marka iyadana gaab yar loo dhaxaysiiyo oo salahan marka hal markii koowaad ku dhufatidba waa inaad marka waa maxay gaab ilaa 2 daqiiqo oo kale aad marka sugtid ilaa waa maxay si marka fursad marka aad ugu heshid haddana maxay hadanaad ku celisid marka. ta kale marka waxa la diiday marka maxay isku xigtid marka 1 2 3 aan isku xigin 1 ku dhufo haddana yar sug haddana 2 haddana ka saddexaad baa ku garaac marka. ka kale waxa la isdiidaadi inaad marka sugtid marka albaabka laga furo inaad isagan aad sugtid waa maxay ilaa inta lagaaga ogolaanayo marka. ka kale waxa weeye hadii aan lagu ogolaanayo iska laabo isaga marka iska laabatid. ka kale ku xiga waxa weeye hadii marka de faam qofka aad u imanaysaa ama cid aad u soo socotid salahan ay de waa maxay ka cudur daartaan qofku waxyaabo badan baa ku dhici kara qof xanuun baa laga yaabaa in la jiifo oo kala inay mashquul yahay baa laga yaabaa marka isaga maxay iska laabanaysaa marka waxba qofku ka dhibi mayso kalifi mayso. ka kale isaga muhiimka waxa weeye xilligada munaasibka ah ee ama guriga imanaysid ama meel kale tagaysid waan iyaduna hada marka xilliye marka munaasiba marka iyaguna toosan macquul ah. marka inahaas waxay ku kooban yihiin waa ogolaanshaha in ubadkeena waa maxay ku tababarayno markay rabaan waalidka xilliga u galayaan intaana u soo galin ka hor maxaa looga baahan yahay haddii albaabka taagay maxaa albaabka ku xiran inta albaabka soo galin oo kale waxaas marka ayaa loo baahan yahay marka maxay marka ilaalino ayna sida fiican toosan magaalada aynu ubadka waa maxay ugu toosino insha Allah ta'ala inahaas aynu ku soo koobnaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la.